رئيسul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ahmed oo habeenkii xalay ahaa soo gaaray magaalada Nairobi ayaa maanta kulan qada sharaf u sameeyay xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan ayuu ra'iisul wasaaruhu ku sheegay inuu yahay mid ay isku xog wareysanayaan xildhibaanada baarlamaanka. Sidoo kale waxa uu ka warbixiyay shir uu ka qayb galay magaalada Addis Ababa oo looga hadlayay arrimaha qaxoontiga adduunka. Waxay la tahay fadhigan waa salaan inaanu isa salaano maadaama intii muddaha la kala maqnaa haddana ilaahay uu qadaray inaan halkan isugu nimaano anagoo safar ku jira ayaa waxaan jeclaystay inaan xildhibaanada salaamo waxaan ka soo noqonnay aniga iyo wafdi aan hogaaminayo shir ka dhacay magaalada Addis Ababa oo ku saabsanaa qaxootiga Soomaaliyeed waa ogtiin dad badan baa dibadda naga jooga oo u badan dalalka dariska sida Ethiopia, Kenya ugu xoog badan Yemen, Djibouti, Uganda dalkaas oo dhan waxa ku fiirsan dad Soomaaliyeed oo qaxay marka waxa shirkaas la soo keenay wufuud dalalka ka timid si xaaladda qaxootiga la isaga wareysto waxaana shirkaas soo qaban qaabiyay hay'adda caalamka u qaabilsan qaxootiga shirka waxa ka soo baxay laba arrimood mid waxa weeyaan dalalkaas inay sii wadaan kaalmada iyo martigelinta ay u fidinayeen dadka Soomaaliyeed ee soo qaxay inta dalku nabadiisa iyo dib u dhiskiisu iska raacayo oo duruufaha dalkeena ka jira ay noqonayso kuwa soo jiidanaya ama saamaxaya in qofka qaxay uu ku soo noqdo asoo sharaf leh nolol sharaf leh ku noolaado. ugu dambeyntii waxa uu baaq u soo jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ahmed xildhibaanada Soomaaliya iyadoo lagu waday maalinta Jimcayn ugu soo aadan inuu aanba bixi doono xiriyaha Dadaab ee waqooyi bari ee dalkani Kenya oo ay ku nool yihiin nus milyuun qaxoonti Soomaaliyeed. Abdicasiis Ibrahim Aldere, Home Cable TV, magaalada Nairobi.